بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halkan waxaynu ka laqbaynaynaa af Soomaali ku laqbaynaynaa laamiyada loo yaqaano laamiyatu ibn al-wardi nasihatu al-ikhwan wa murshidatu al-khillan waa la yiraahdaa ehel iyo gacal iyo saaxiibaba midii u naseexaynaysa khayrka u miiraysa laamiyatu ibn al-wardina laamna way ku dhamaataa ibn wardina ninka iskale baa la yiraahdaa nin faqiih ah oo madhabka shaafiiciga ah uu fiqihan madhab u yahay xalab ku dhashay wadankan Suuriya sanadku markuu ahaa 689 isla markaana dhintay 749 markay ahayd ninkaas iska leh magaciisa waxa la yiraahdaa Umar ibn al-Mudaffar ibn Umar Zainuddin ibn al-Wardi baa la yiraahdaa nasabkiisu wuxuu galaa Sayyid Abu Bakr radiyallahu anhu warda saaxib rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ninkii ugu khayrka badnaa ummadan iyo ummadihii ka horeeyay ee naga horeeyayba ninkaas uu nasabkiisa galaa isaga ayaa ku sheegi doona laamiyadiisa maca anni ahmadullah ala nasabi bi Abi Bakr ittasal Abu Bakr buu galaa nasabkayga ayuu sheegtay mar uu ka hadlayay in aan nasabkayga lagu faanin laakiin ha imoodina inaan ahaynin sahlan oo laga maaratay nasabroon yahay malaynine Abu Bakr baan galaa ayuu yiri ninka laamiyadiisa inuu akhrinaynaa faqiih buu ahaa adiib ah oo aimada yani akhyaarta u tarjunta ay sheegeen sida fi tabaqat shaafici ay ku sheegeen inuu nin aad la yaab u ahaa adiib ah oo shaacir ah oo funuunta culumta shariicada ma sha Allah mid walba midka kale oga sii daraabu ahaa ninka laamiyadiisa inuu marka akhrinaynaa biidnillahi tabaaraka wa ta'ala waa naseexo waa wasiya iyo dardaaran cid la dardaarmana waxa ugu xaqnimo badan ehelka iyo qaraabada wa andir cashirataka al-aqrabin saadaradeed buu wiilkiisu kula dardaarmaya dardaaranku marka iyo naseexadu qofkay badashaa noloshiisay wax ka badashaa cid la dardaarmana waxa u qiimo badan dhalinyarada maxaa yeelay wixii aad kula dardaarmaysay inay ku intifaacaan baa laga yaabaa waqtigii qofku isbedeli lahaa ayay joogaan xaggan kalena waa dad gafka iyo gabidhaca iyo tayshka iyo fudaydka iyo shaytaanka u nugul weeye oo ama xaq shahawo shaytaanku ha u duufsado ama xaq garasho darro iyo maskaxdoodii wali kala miirmin ha u duufsadee waa cid maragtay un shaytaanku uu inta badan duufsan karo sida daraadeed in naseexada iyo wax sheega sida roobka oo kale loogu shubo oo waliba loo qurxiyo kolba meel laga soo galiyo oo wax sheega aad loogu badiyo dhalinyarada weeye taa isagoo ka duulayo marka wiilkiisii buu la hadlayaa 8 bayd weeye laamiyadu waa xikam iyo durar iyo wax un ma sha Allah ilaahay xaalkeed og yahay إن شاء الله في صومال بين كل قبيننا وحير شاعرك اعتزل ذكر الأغاني والغزل وحير شاعرك اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الحق وجانب من هزل اعتزل كقو كديرو كفقو كالصوعا ذكر الأغاني هيسها حسد دودا إيا هذا الحين تودا كفقو iyo walghazal haasawaha iyo qaraamaha iyo shukaansiga waxanay dadka qaar u yaqaanaan waqulil haqa dheh oo xaqiiqada ku noolow wajanib man hazal qofka kaftamana ka dheerow oo ama kaftankaba uu tabeeca u yahay daydanada ama hadii kale aan dan kale aqoon dad laga qosqosliyo iyo kaftan iyo sheeko iyo fadhi ku dir moogiye aan dan kale lahayn lama diidana in marmar li tasliya xoogay mazaxaas iyo kaftankaas nabigu uu kaftami jiray laakiin xaq buu ku kaftami jiray laakiin daydanadiisu ma ahayn yani inuu iyada ka dhigto waxa kaliya uu nool yahayba sida ma ahayn marka gabaydkaasi wuxuu kula taliyay wiilkiisa ibn Wardi in uu heesaha isaga fogaado
heestu qalbigay madoobaysaa, heestu waa lahwi iyo lacib kii qur-aanku uu ka digay, heestu waa qur-aanu shaytaan, waana meelaha shaytaanku kusoo gabado weeye. kaftanka iyo haasaawahana waa la mid. maxaan sameeya waqul ilxaqa wajaanib man hazal. marka kelimatu ictazala waa iftacala, qur-aankana way ku badan tahay. waid ictazaltumuuhum wa actazilukum, asxaabu lkahfi baa reerahoodii iyo tolkoodka incizaal ka sameeyey iyo inay ka fogaadaan, ay ka go-aan, ay ka dhuuntaan, ay duurka ka galaan. nabiyullaahi ibraahim umuna maryam calayhi salaam baa iyadana qoyskeedii saasoo kale howdka ka gashay. wahaakadaa way badan yihiin dad noocaasoo kale oo qur-aanku uu sheegay oo casligaa sameeyey. nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid saxiixa ku yidhi, qofka yacni yuushiku an yakuuna khayra maali lmuslimi ghanamun yatbacu biha shacafa aljibaal yafiru bidiinihi min alfitan. qofka inuu kaynta iyo gosha uu la galo xayn yaroo ari ah isagoo diintiisa la cararayo ayuu qofku u dhow yahay. kaasaa u khayr badan, xoolo midka u khayr badan kuwaasay noqonayaan oo adduunyo iyo waxaasoo dhan isaga fogaaday. sidaasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam. alimaam maxamed ibn ibraahim alwasiir oo dhintay sanadku markuu ahaa 840kiina kitaab la yidhaahdo alcuzlatu fi aakhiri zamaan buu iska leeyahay oo uu ku sheegay 50 xadiian ilaa 50 xadiid oo nabiga ka asaxay sala allahu calayhi wasalam ayuu cuslada iyo fadliga ay leedahay fi aakhiri zamaan buu ku sheegay. marka kelimatu ictazala saasay ku timid. marka ictazal dikra alaghaani, nusakha qaar waxay qorayaan dikra alghawaani, waana gabadha qalanjada ahee quruxdeeda ku kaaftoontay weeye, ee qoorta wax la susudha iyo jijimo iyo kareem afka iyo bishimaha la iska marmariyey iyo aan timo la isku rarakibay u baahnayne quruxdii ilaahay u dhaliyey bay ku kaaftoontay. wax kale oo kaalmaati uma baahna. kuwa iyaga ayaysan ku fidnaynin. maxaa gabdha loo yidhi aaway wiilashii? maxaa wiilasha? waxaa weeye gabdhaha xishood baa ilaahay ku dabeeceeyey. xishoodkaasaa laga yaabaa in badan oo ka mida inuu badbaadiyo, laakiin wiilku waa weerar, isagaa marka si gooni ah loola hadlaya. ama haddii kale gabadhiiba hadalka way kula jirtaa. hadda wiilku unbaa lala hadlayaa, gabadhiina way kula jirtaa waanada. ictazal ka dheerow dikra alaghaani. alaghaani marka haddii la yidhahdo waa jamcu ughniya, alghawaani haddii la yidhahdana waa jamcu ghaaniya. walghazal maaratay kaftanka, walghazal haasaawaha iyo qaraamaha. waqul ilxaqa xaqa dhe wajaanib ka dheerow man hazal, qofka maaratay ciyaarta badan ee kaftanka badanna qofka isaga dheerow. waayahay marka incizaalka oo dadka oo laga dhexbaxa ah, qofka markuu diintiisa u boqo waa sunno, bal waajib bay noqonaysaa inuu diintiisa la cararo. oo asxaabulkahfi god bay la galeen diintoodii iyo iimaankoodii. nabiyullaahi ibraahim sidaasoo kale waxaa weeye. laakiin qofka ishuba oo yacni waxaan qofkan baadida iyo ugu yeedhaya ee baadilka ugu gacan haadinaya iska celin kara, qofka isaga inuu dadkiisa ku dhex jiro oo uu dhibkooda ku sabro ayaa u fiican. beydka labaad wuxuu yidhi wadaci dikraa liayaami siba faliayaami siba najmun afal ina ahna cayshatin qadaytuhaa. waa beydkii saddexaad. dahabat ladaatuha waalithmu xal. beydka labaad baynu ku hormaraynaa. wadac ka tag addikraa xusuusta iyo hadalhaynta liayaami siba dhallinyaranimada maalmaheedii aad hadal haysood milicsanayso oo aad leedahay yaa igu celiyo, war ma suuroobaysa isaga tag. ha ku danseegin ee dantaada iyo maalinta aad joogto howlaha kula gudboon qabso. faliayaami siba dhallinyaranimada maalmaheeda najmun waa xidig afala oo dhacay. najmi haddii la yidhaahdo xidiga weeye, haddii la itlaaqo. waxay kaloo culummada qaar ay yidhaahdeen mufasiriinta ah markay fasirayeen wannajmu washajaru yasjudaan. wannajmu waa dooga aan jirid uu ku istaaga lahayn, waa cagaarkan iyo dalagan dhulka ka soo baxa aan jiridda lahayn. washajaruna waa geedka jiridda leh. saasay ku fasireen. marka najmun afal waa xidig dhacay, wax soo noqonayana ma aha,
ee ha ku danseegin. alaa layta shabaabu yacuudu yowman fa ukhbirtuhu bima facala almashiibu sooma ahayn, ma soo noqonaysee dayshnimadii iyo dhallinyaranimadii iyo gefkii iyo gebidhicii iyo wixii kaa dhacay towbad iyo istikfaar ku bedel, laakiin ha u shallaayin. beydka saddexaad, ina ahnaa cayshatin qadaytuhaa, ina ahnaa cayshatin nolol midda ugu qiimaha badan oo qadaytuhaa aan gutay, dahabat way tagtay ladaatuhaa macaankeedii wuu tegay iyo ladadeedii. hadday un wax un lada lahayd weliba laxda iyo muddo kooban bay ku tagtay. hadday waxaa kuu soo hadhay xalaal ahayd waa khayre, haddii ay xaaraam ahayd wal-ithmu dembigiina xalla waa degay. bal fakar wiilyow dhallinyarada ama ninkayow weyn dhallinyaradanimada iyo waxaad soo martay, bal ka fakar maxaad samaysay. midii ugu qiimaha badnaydba ka soo qaad, ee ugu raaxada badnayd, ugu dhadhanka macaaneyd ee aada gudatay, macaankeediina saacadaasi kulama dhaafin. hadday dembi lahaydna dembigiina waa la dhigay ee ogow. marka dhallinyaranimaduna waa qofka marka uu xoogay caqligiisa uusan kala miirmin kuna fillayn baa la yidhaahdaa. qof weyn oo iska yeelayaaba tif ah oo aada u badane maxaa lagu samayn. haddii qofka wuu dhallinyareeyey baa la dhahaa, wuu dhaanteeyey qofka isaga. war caruurnimadii iska daa baa la yidhahda, nin weyn baa tahay. sow sidaa lama yidhaahdo. marka ina ahnaa cayshatin qadaytuhaa ama qadaytahaa aad adigu gudatay ama anigu aan gutay, dahabat ladaatuhaa wal-ithmu xal, macaankeediina wuu tegay dembigiina waa la dhigay. beydka afaraad, watruk ilgaadata laa taxfal biha tumsi fii cizin waturfac watujal. watruk ka tag algaadata, alghawaanidii bay la macno tahay hadday aan sheegnay ee aan niri nusakha qaar baa qoraya. waa gabdhaha quruxdooda ku kaaftoomay weeye. kuwaa isaga tag oo maan iyo maalba ha gelinin. sideed gabarh qurux badan ku heshaa, sideed wiil qurux badan ku heshaa, yaysan dantaadu noqonin. laa taxfal biha ha u aabayeelin oo yaysan ku cibaadadii ilaahay iyo dantaadii iyo waxbarashadii yaysan ku dhaafinin. haddaad si u fiiriso, imisay dhallinyaro shukaansi iyo hebel baan la socdaa iyo qaraamo ay waxbarashadii seejisay. imisay qalbigooda iyo caqligooda iyo cilmigooda iyo diintooda ku ciyaartay. caqliga iyo qalbiga iyo cilmiga iyo diintiiba imisay oga ciyaartay. afartaana afar arrimood oo ciyaar gala ma aha. afar arrimood oo ciyaar galo ma aha. imisaa qof jaamacad ka hadhay, imisaa qof suuqa ku gashay, maalin uu qof la hadlay ama uu u sheekeeyey. marka waxaasi laa taxfal biha, calafkaada waayi mayside. wixii sharcigu kuu baneeyeyna wadada sharciga u mar, wixii kalena dantaada ka raac wey. watruk ilgaadata, gabdhaha quruxdooda ku kaaftoomay ka tag. laa taxfal biha, tumsi waxaad ahaan fii cizin sharaf dhexdeed baad ahaan, waturfac waana lagu koryeeli, watujal waana lagu weynayn. adigiina sharaf baad isla yeelanoo waa kalsooni baa ku geli. haddaad laakiin dumarka maantao dhan ku dhex jirto, soomaalida meelaha qaar baa waxay yidhaahdaan naaga shaneeye. maantao dhan dumarka aad saa ugu dhex milnaato, waxaa weeye adiguna waxaa weeye ceebo badan baa kusoo gaadhi, ceebo badan ayaa kusoo gaadhi. haddaadse laakiin aad ka soocanto ood ka tagta soo ma aha, tumsi waxaad ahaan fii cizin sharaf, waturfac waana lagu koryeeli oo darajaad sare, watujal waana lagu weynayn. gabadhana nabigu sal allahu calayhi wasalam, gabdhaha iyo nimanka ragga markay wada tukanayaan, gabdhaha safafkooda safka ugu dambeeya ugu khayr badan. maxaa yeelay gabarhba ragga intay ka fog tahay, ilaahumay khayr bixtaa isugu yimaadaan, inta ay xagga wada hadalka iyo sheekada iyo dhexgalka ay ka fog tahay bay ka khayr badanta. raggiina waa sidaasoo kale. marka wixii sharciga isagu waa mas'alo kale. beydka shanaad wuxuu yidhi, walha ka tag oo ka mashquul can aalati lahwin, ciyaarta qalabkeeda. lahwiga marka waxaa weeye waa bahalkan kabanka la yidhaahdo iyo durbaanadan iyo waxa kan, kaasoo marka adrabad farax geliyey oo qofkii marku uu sameeyo sheekadaas iyo shaytaanku uu qurxinayo uu farax gelinayo. marka
marka uu yiri ka tag gabdhaha iyo haasaawaha iyo qaraamaha iyo waxaas iyaysan ku dan seejinin markuu intaa kula taliyay haddana wuxuu yiri muusiqadan iyo social mediahan iyo fasaadkan iyo filmadan iyo waxan kana ka dheerow fuqahaduna waxay leeyihiin qalabkan muusikada lagu garaaco haddii aad meel ku soo marto waa la burburin karaa waa la jajabin karaa qofna maanta dhan waa isku sawirayaa isagoo meelaha un laaqinayaad arkaysaa walha marka ka mashquul can aalati lahwin ciyaarta qalabkeedii taasoo atrabat farax gelisay shadriga labaad waa canil amradi murtajil kafal arrin soomaalida aan caadi u ahayn oo sheegitaankeedaba laga yaqyaqsoonayo ayuu ku sheegayaa waa markuu miisaanku khaldamo oo diintu iimaanku uu daciifo oo dadnimadii iyo dhaqankii uu dhinto xitaa wixii gaal iyo muslimba ay heshiiska ku ahaayeen baa la sii dhaafayaahoo darajadii xayawaanka la gaadhaya oo waxaa la gaadhayaa inay ragguna ragga wax ka dayaan dumarkana dumarka wax ka dayaan tiibuu marka wax ka sheegayaa wuxuu yidhi waa canil amradi alamradu hunaa waa ninka dhallinyarada ah ee quruxda u dhashay xaggana aan garka lahayn waa canil amradi garmaleeti baa meelaha qaar laga yidhaahdaa kan aan garka lahayn isna ka dheerow kaasoo murtajil kafal miska waaweyn kaasna ka dheerow oo ka fogow ayuu yidhi oo ha ku fidnoobin isagana kolba soomaali dhaqankeeda dee wax u yaalla meehee waxa weeye laakiin ciddii intay cid kale u tagtay dhaqankeeda qaadatay taasi waa sheeko kale laakiin ninkii Soomaaliyeed wuxuu yidhi ninbaa maaragtay waxaa lagu sameeyey buu maqlay kadibna intuu tooridii u watay iska bixiyey oo isdooxay buu isdilay oo uu yidhi waxa weeye raganimo ba'day yacni ninkaaba maadaama aan magaca rag wadaagno nololi ma jirto hadda in la isdilo waa dembi weyn laakiin meeshaasay Soomaali ay ka taagnayd ninkii buu sii tilmaamaya wuxuu yidhi inta badda haddii uu muuqdo tankasif waxaa qarsoomaysa oo madoobaanaysa shamsu duxa tankasif waa kusuufkii waxaa madoobaanaysa shamsu duxa barqada qoraxdeedii ayaa marka uu wiilkan soo baxo dhalaalka iyo iftiinka ka baxaya iyo cadaanta ayay qoraxdii barqada yaa maaragtay madoobaanaysaba wa idaa maamaasa haddii uu xaragoodana yusri wuxuu xaqirayaa bil azal geedka dhuurka ah ama haddii kale waranka marka saa loo gano meel aad ku ganto markuu warankii uu saa maaragtay meeshii loogu talagalay uu ku sii socdo warankaas ayuu xaqirayaa isagaa kasii daran haddana isaga ayaa kasii daran wa idaa maamaasa haddii uu xaragoodana yusri wuxuu xaqirayaa bil asal geedka dhuurka ah zaada inqisnaahu bilbadri sanan inqisnaahu haddii aan ku qiyaasno oon barbar dhigno bilbadri dayaxana zaada waaba ziyaadaha waa ka sii sitaa sanan xagga iftiinka aw cadalnaahu haddii aan ku cabirno biqusnin laanna factadala waa toosan yahay laan xagga toosnaantana laan weliba si toosan u baxday haddii aan ku maaragtay cabirnana ama aan barbar dhignana biqusnin laanna factadala oo nin tuur leh dari leh golxa leh dalba leh wagda leh oo marmarooro ma ahee waa nin toosan oo unsuuro ibni aadam loo sameeyey midii ugu quruxda sanayd ku toosan weeye zaada inqisnaahu bilbadri sanan iftiin buu dheer yahay xagga iftiinka iyo dhalaalka iyo cadaanta dayaxaasi waa kasii cad yahay waa mubaalaqo aw cadalnaahu haddii aan markaas sinno biqusnin laan aan saa ugu sinnana factadala waa siman yahay beydka 8aad wuxuu yidhi waftakir fii muntahaa xusni aladii anta tahwaahu tajid amran jalal waftakir bal ka fakar fii muntahaa xusni aladii anta tahwaahu shaygan adiga aad jeceshahay aad jamatay wanaagiisa yoolkiisa bal ka fakar waftakir ka fakar fii muntahaa xusni aladii anta tahwaahu kan aad adigu jeceshahay quruxdiisa ama wanaagiisa yoolkeeda bal ka fakar haddaad ka fakartood si dhaba uga fakartood caqli saxa ku cabirto ku fakarto miisaan saxana aad saarto tajid waxaad heli amran baad heli jalal arrin la yaab leh arrin weynna waad dhihi karta waa afcaalu addaad waa ficilada
labada macne iska soo horjeeda qaata amrun jalal amrun yani cadiim waad dhihi kartaa waxaad kaloo dhihi kartaa amrun jalal ay amrun xaqiirun sagiir wax yar oo jalal ah wax la yaab leh oo aan macno lahayn oo la sheegaba oo cuntadii qiimaha badnayd ee lacagta badan ka soo bixisay calooshay geli muddo kadibna haddaad musqusha gasho waad la yaabi meeshaasay ku dambayn gabadhii quruxda badnayd ee waxbarashada iyo cid walba aad oga tagtay ama haddaad gabarh tahay wiilkii aad reerkiinaba maaragtay ku kala dhimateen aad isaga aad jeclaateed jamatay hadhow isaga oo ay lugihii marmaroorsameen oo bidaaray gashay oo kala jeesjeesaday baad arki adigina weli adduunkaad joogtaa marka waftakir bal ka fakar fii muntahaa xusni aladii anta tahwaahu hawadaadu midka adigu aad jeceshahay eed u hawootay wanaagiisa yoolka iyo meesha ugu dambaysa bal ka fakar tajid waxaad heli amran baad heli jalal oo aad u weyn ama amar arin xaqiir ah ayaad helaysaa wahjur ilkhamrata khamrada isaga tagoo ka hijro in kunta fatan haddaad wiil wanaagsan tahay kayfa sidee buu yascaa ugu socon oo u aadi oo ugu dadaali fii junuunin waali man caqal qof ilahay caqli uu siiyey qof hadda haddii uuna yidhaahdo dukaankan u socda maxaad ka dooni waxaan soo gadanayaa waali waxaan dhihi lahayn war waadba waalan tahay kaale qur-aan ha lagu akhriye waxaa kaa la mid ah qofka maandooriyaha iyo khamriga daroogada iyo waxaan maanka dooriyoo dhan qofka intuu lacagtiisa ku bixiyo caqligii uu lahaa iyo miyir qabkii ku bedeshay waali wallahi waa waali meeshii ugu dambeysay wahjur marka ka tag alkhamrata khamrada ka tag waana ummul khabaa'ith siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam xumaan oo dhan hooyadeed wey wahjur ilkhamrata khamrada ka hijro oo isaga tag in kunta fatan haddaad wiil wanaagsan tahay kayfa sidee buu yascaa ugu dadaali fii junuunin waali man caqal qof ilaahay u caqli siiyey wattaqi illaaha ilaahay ka baq fataqwa allahi ilaahay cabsidiisa maa jaawarat lama dariisto qalba mri'in qof qalbigii lama dariisto ilaa wasal wuu gaadhaa liibaanta adduunya aakharo laysa ma ahaanin man yaqtacu turqan batal laysa ma ahaanin man qof yaqtacu goynaya turqan wado batalan geesi ma ahaanin oo yaa geesiya inamaa in kale ma ahee man yattaqi illaaha albatal qofkii ilaahay ka baqa ayaa geesi ah meeshanna dardaaran aad u qiimo badan buu wiilkiisa siinayaa wuxuu yidhi ilaahay ka baq waana wasiyatullahi lilawaliina waalaakhiriin ilaahay haddaad ka baqdo meel kastay cabsida ilaahay kaa saari sababteedaad ku liibaani adduuniya aakharo waad ku badbaadi naar baad uga badbaadi dulli adduun iyo dulli aakharo cabsida ilahay baad uga badbaadi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja ayuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala wattaqi illaha ilaahay ka baq marka fataqwa allahi ilaahay cabsidiisa maa jaawarad lama darista dhe qalba mri'in qof qalbigii ilaa wasala wuu gaadhaa dantiisa adduunya dantiisa aakharaba laysa ma ahaanin man yaqtacu ninkii gooyo turqan wado gooyo batalan ninka qaaticu ariiqa ee dadka jidgooyada intuu habeennimo mugdi ah meel keligii istaago dadka jidka u gelaya kaasi geesi ma aha ee libaaxa iyo dugaaga u babca dhigay een ka baqin kaas geesi lama yidhaahdo yaa geesi ah hadda inamaa in kale ma ahe man yattaqi illaaha qofki ilaahay ka baqo ayaa albatal geesi ah ninkaasaa geesi ah xuduudda ilaahay qofka ilaaliya rag iyo dumarkuu noqdoba hadduu dhallinyaro yahayna kumaba jiro kaasaa geesi ah isaga oo aan cid arkaysaa la arkin oo gurigiisa ku jira iPhone-kiisa iyo kombiyuutarkiisa iyo telefisyoonkiisana ay hor yaallaan oo wuxuu rabo samayn karo qofkii yidhaahdo la tilka xuduudullah ilaahay ma ogola ilaahay baa ay arkaya maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid alladii yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukhfi suduur baa ay arkaya qofka yidhaahda kaa waye geesi midka intay gabar qurux badan u yeedhatay tidhi zine iyo xumaan ugu yeedhay yidhi innii akhaafu allaha raba alcaalamiin waa nabiyullaahi yuusuf iyo dhallinyarada ku dayata weeye waa nabiyullaahi ibraahim iyo dhallinyarada ku dayata waa asxaabulkahfi iyo dhallinyarada ku dayata weeye